كثيرا كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، ilaahay baan ku mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaane ilaahay inaan u dhowaano. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka ay nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan, keennaa hadlaaya iyo keennaa lala hadlaaya, inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano, inaan ilaahay u dhowaano, oon aakhiradeenna u diyaar garowno, oo adduunyadan aan ka qaadana diin waxaan ahay ninka ka qaata u khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyne ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay. innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey. caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegee lahaa, meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdulaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen, sida innaku aan u shaqaysanayeen, sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi, low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi, qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo, uu ilaahay xasuusiyo, uu dhimashada xasuusiyo, uu aakhirada xasuusiyo. innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan, zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana, inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa, aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo, inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo. waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay. haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa, qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam,
maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya haddaa su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weydiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaaad arkaysaa
laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tiraahdo maxaad la ooyey waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyey haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay ee nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu ihi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oon ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdaan letaraadkii baan ku noolahay letaraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاض الله مسعطو شفاض حق إلهي بكتما دا دكان كاقي مهرد دادن يسوق قاقن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بو كإيمانيا وأين أتقرتا ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبريده متيستي وإلهي ويان كرجها متيستي وإلهي ويان كعبسده متيستي وإلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو باهداده كليجي وشيغو ربي هو الله دين تيدنا الإسلام رقم كيغو إسلام وحكلا أنكم ما دقمو وحكلا ما آمنسني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما يسترتيب النبي قول عليه الصلاة والسلام وأين أدنقطة قف لله أنه لو تاريخ الصحابة كنت على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال دا أيا صودا أو يري هل من مبارز أيا معركة يقو صودا أيا علي با أدعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبو لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو سننا علي بن أبي طالب وننكا كورف ديبو قنوفو جيغا لغا تفاي markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufa kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadhaa i soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin
waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaasaa nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la oran doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nabigeygii Muhammad alayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doonaa an sadaqa abdi addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaado u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaado u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yar imika aan haysaneen moobilka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xurul cayntiisii markaasaa la oran doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhul mawt wa ahlul jannati laa yanaamuun baa nabigu alayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada hadday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahlul jannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hor dhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونان لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي وان جفني وان هردني هردد محن نقصو كعيي بولي markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yawm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu waja'alna al-layla wan-nahaara آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي آية الليل آية النهار نولشن الدوية أن كن نولهي ومالين يهبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدين لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدوية انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بربرها جنة كميدا اللوغة ديغيا
gaalkiina waxa looga dhigayaa godgododka naarta ka mida looga dhigayaa ninna uu hurdaa oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeennaa wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشي لا إله إلا الله إهل كيك النقضة الله ينقدقه قبرك مركي قلان كوكاليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma aljamci yowma altagaabun yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yowma altagaabun yowma altaama yowma asaakha habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaase qiyaamaha markuu ilaahay ka warramaayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin keliya wa fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana yowmaidin tucraduun laa takhfaa minkum khaafiyah yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowm baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala yowmkaasina qur-aanka ilaahay noogu sheegay waa 50,000 sannadood ibnu cabbaas radia allaahu canhuma mufasirkii qur-aanka wuxuu ku fasiruu yidhi 40,000 sano waa la joogi 10,000 sanona xisaabtaa ku dhammaani doonta buu yidhi 40,000 sano ayaa sidaa loo taagnaan doonaa 10,000 sanona xisaabtaa ku dhammaan doonta nin acraabi oo reer baadiya ayaa sara kacoo yidhi yaa rasuula allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii acraabigii intuu sii jeestay buu yidhi najownaa warabbi alkacba kacbada rabbigeyga ayaan ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabad gallay buu yidhi markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي قولي إنك ماذا مجرو هدو جرى نبو رسول كل يحي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عد وكل أفعل ليس مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كيشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي قولي تمر جيح تمر إني كان هلين بو نبي يقول ياي هذا الكون أكسن هكو هالله كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكر وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خير كعضو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي
عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتري مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيتري يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان قف والبباردي سيبا كتا الله واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هاوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مرقابو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نمبا ما قبض با ما نقبا ما بإيجي يبو رسول قد هم بقى مجربو يدي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نيكل أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنبا ليدي نيكاس دولك مويان عرك ما إيجين مركز الله قولين مروق تنبدن وما حيبا لقويري ما دتكن وحي أوغان بعد أدوكو أوغاتي باللقيري دتك أنيقا وحبيقا مقاليني تيدا أنيقو أنكه الله يا وحاني نيشيقا يا الموت في عنقي قيريدي با قورتا إيسودا والقبر بيتي هل كان ليديقا ينوى قبر قويان والقيامة موقفي ماشا اللي جوجيني ينوى بنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا واجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمين دوننا كما ورقبي بود عنكو انت سو مرحلة نيكا اي سوغا يسو اساقو هادو قصلي ها قصلي بويري انو تايدا كورما يا بوري انت نولا هاي اوهين با نولشيدا كو دميسن بويري ما انت وادويو بريتولا واخره ويان عملكاغا لا داداعيسا maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي نكو ورمي عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالك سرجوجا أي وقت كيسان كريا بيكوتري من يقوى أي كريا بيكوتري كنتم كنوا صندوق مرقابو النبي يقول يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشة إلهي كسو أضاعي والله فوديدين صلاة دفرت كأنت أتوكتان إن لك بابنك قيام الله قد يجيبودي انت أتوكنا صلاة المغرب 5 دقيقة لبيه 8 دقيقة صدحيه 8 دقيقة مؤمن كإيمان كله إيه أدوية أنتو جوجا كالصحيقاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحسير دكتي إيه آخرة كسر حساب تمي إيه تلابضو قاذا يبا إيه آخرة ديسا هذا اللي كنتو كسو بحين قفك مؤمنك آخرة إيقا دقاليه سينتو ننبحين آخرة إيقا ماشو مريو آخرة إيقا ماشا عنو السعودة ما مال آخرة إيقا داوعي سبا مسوا مال آخرة وحيت رئيسا هذا اللي إيقا صوبحايا ما هذا الآخرة إيقا داوعي يبا ودبئي كيسانا يهدو طولة مسوا هذا الآخرة إيقا كوبت بعدايو دقالها بحينايو ما دقال آخرة إيقا إكبا يبا oon aakhiro ku badbaadayaba oo meel fiican buu igu dhacaya mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oon ka qabsadaa inta goor tahay muuminku uu xisaabtamaya muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baabanka qiyaamo looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofka inuu macsiyada waxa ka qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nabiyadu dadkay ugu yeedhayeen nabi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisu ugu yeedhay aakhiradan xaggeegu ugu yeedhay
waxa ilaahay kaaga raali noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariish markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nabigu wallaahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yidhi saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalka dhisaysaan malagii suurta afuufayay waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu ina alquluuba la tasda kamaa yasda'u alxadiidu idaa asaabahu almaa birta xadiidka biyuhu hadday taabtaan daxal bay ku reebaan biyuhu qalbiga bini aadamkuna daxal buu yeeshaa maxaa qalbiga daxalaynaya waxaan adeegaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad dhegaysanaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ku hadlaysa qalbiguu saamaynaya waxaanaad ka fikiraysa qalbiguu saamaynaya waa afarta qasabadood ee qalbiga bini aadamka ku socoto weyn afartaas saabaatul qalbi bay culimmadu yidhahdaan waxaad eegto qalbiguu galaa waxaad ku hadasho qalbiguu galaa waxaad ka fikirto qalbiguu galaa waxaad dhegaysato qalbiguu galaa qalbiga daxalka maxaa lagaga biiyaa laba shay bay culimmadu yidhahdeen laba shay baa qalbiga daxalka lagaga biiyaa qur-aanka akhriskiisa oo la badiyo iyo aakhirado inta badan la sheegsheego la xasuusto laga sheekeeyo labadaa maanta may nagu yaryihin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta ee zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid suuqu lmuslimiina ka musallaahum buu yidhi cali bnu abi aalib suuqu lmuslimiin aswaaqda muslimiintu waa sida masaajidooda oo kala weeyaan sida masaajidda ilaahay loogu weynaynaayo ayaa zamankii nebiga suuqana ilaahay loogu weynaynayey sida maskiidka dhexdiisa ilaahay aan loogu caasiyaynin ayaa suuqoogiina ilaahay aan loogu dhex caasiyeyn innakana zamankeennan maanta sheekadii dibadda taallay ayaa laga yaabaa in la keenay maskiidka gudihiisa nin buu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam maskiidka dhexdiisa baylah ka yaboohinaya markaa buu nebigu yidhi ilaahay kuuma soo celiye buu ka yidhi haddaad aragtaan buu nebigu yidhi nin maskiidka dhexdiisa baylah iyo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma soo celiye dhahada haddaad aragtaanna nin maskiidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaad tidhahdaan ilaahay kuuma barakeeye dhahada innamaa buniyat almasaajidu limaa buniyat lahaa masaajidda wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi nolosha masaajidda taalla bay culimmadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla maskiidka in la keeno maaha cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada dadka muslimiintu nolosha maskiidka ay ku haystaan ayay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taallaa
عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قلبوا ورنجري هل كاين فريسية إلهي ساعدها الرومينك عليا عبد الله بن عمر انتو يما طفيل بوكو ورنجري إن مري الرعب ورنجري حقين تقنا سوقا تقنا سوق يوسف بحيان هذا أنا مالك قالوا لي نمر الراع هذا أنا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالك سوق مرقوا دور عيسى مرقوا سوقي كعل عليي وكعل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وين قيسا مالي والبا بدعنا كما سو يبستد بدعنا وما يبقيسد بدعنا ما سو بايعدد ما لها دتكو فديانا نما فريسيد ورالكن إن فريسي ورالكن نوجو شيء بوكيدي ورالكن دين تنوجبر شيء هذا صحابة دين بيهيد مرجع ابن عمر باكويد ورا كاغن علوشة بورنلي إنما نقض من أجل السلام وحنوك الله إن وحويان دتك إن السلام نوم بنوك الله إن بوكيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنوك الله إن والدعاء ويان دعاء بنوك الله إن مسلمين تنو دعينا يكونوا إنه دعينا بقول قفانو دعينا بقول كاسي وينو جوابيا ودعو لقى يا بابا بقول كأولياء إلهي أنت يكون حجرته إن إلهي دعاء ضنا أقبله صلاة المسلمين تلسيوا معي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركاتك إلهي كركاغا هذا كي كلا مسلم كواحد كليه أديقنا نبت قل يدي إلهي يا نحريستي إلهي يا بركاتي إلهي كركاغا هذا بوكليه سلامتا صلى سوك الله هينا بقول قف سلامينا لما بقول قف سلامتا أمد سلامينا وينو جوابيان وحي قرنا يا صحابته إن سلامتا مسلمين تعالى دحمرين إلهي انتو أقبلوا إن النبض هلان أو نحريستي هلان أو بركتنا هلان إنكم بقاش كيو بدا عد يا دويدا لوك الله هم ويانا سنة نبي لوك الله هاي ولقون ولا نكمل دعسنا ما أنت سلامتا صلوا قدر جيا علي بن أبي طالب إنه يمدو كيدي صاحب العيال بانهي معيشتي بيقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسحه لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قفك هذا أوين مركز لا صعته آيات هر صعتها بوكيدي هذا هر مرتاع مركز مي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا بين اللبد هذا والد الله يدم بدافع أنا دو ويدين مركز ها مركز برتا أرزاق هذا كاحد واتاس لبد والد دعاء كوب درب أرزاق هذا كوفر مية ما لها إنكم يقول أحمد كيا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام يا برزقك كده حركين والدك دعاء سووا دعائين برزقك كده حركين استغفرت أي بدنا يا برزقك كده حركين صلاة الضحى أي تكن يا برزقك كده حركين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس الصلاة جمعين لتكن يا مسجد زحمة يعيدك كده عيا دينتن إلهي نوم السنين كليا إن آخر ما فعدت ونقبل أبنتو بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان يآخران كدرنا كل بانو marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaan nضيعنا adduunyada diinha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallahi hadda aakhiradu in la weynaato dhaqankeena toosi oo rizqeena xalaal noqon oo mujtamac oo dhan ba isbedeli وايو لأن مجتمع وحي نقول مجتمع آخر كل حساب تمايا سيدي لبادين حديث النبي يقول نوجو شيء في السنن نبى ندل كإيبيي دل كي مركو قتي ودل بيرات بوها أو فلاي مركا خزن الذهب مركا وقصوا بحده جرة من الذهب أو قاتي أو لا أرضو نكي لهاب أو كانوا كيري ودل كذي إيبي سي ذهب كإنت لك بقى صباحه ما له هذا اللي سنة إيجا قاضي بكيري مركز مي أنا كم أوجين هذا إلهي كاسية هذا إسكال قاضي بكيري
وروحان أذيك عليه إيقاظه إنك الزمن كأنه أمعي وروحان أنيق عليه السي وينتين وحكو دقال منه دول كان أنيق عليه قري كان أنيق عليها مهردان أنيق عليها وحان أنيق عليها بس كويس سنة إياكو وحي تاقناين دادكو مركي هقاقين وروحان أذيك عليه إيقاظه إياك ها قادن مايو ما دعي كرتو ماي أدا إسكالي أدا إلهي كسيه إسكا قادو ماي دول كان أدا إيقا إيبيي مالها واد هالمامسنتي أديقا إسكالي إيقا قادو وحان مليها نقوية لعكتا إنتان لقنا نكوما السيني ماي لابدين إنتي إسقبصدين بي محكمة تغين حيث كويستان كان وحو ليا حولها نينكا لا ليها إيقا قاتو كان وحو ليا ورمليا إساقا إلهي سيي هاسكا قاتو قادقي مركا قادي في عنبوها قضاد الزمن كان لقى بيني أورن لها حولها دولة دالة إسكا كينا إذا غارب إسكا في عنوي جيراني لكن كود واحد إسكا جرى دولة ده وشقية موقتها حولها دولة ده إسكا كينا هلوها كم حينوكونا مورن وحويري هذا محل لها أبد ويل هذا قونا قبل لبدا إسكو غوريا لبدا أنا حولها صيب ويلي بالفرس إصلاح هو عجيب هل كان هذا إصلاح هذا عجيب هل كان هذا حماة لكن دقيقة قصة كله صدق نبى النبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دايماًكو مركز النبي عيسى كويد وحن ودايماً والذهب والجوهرات مركز سيد هذا نوقات مركز النبي إلى هاي صدري هي أدوية مل موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا القاعدة ثاني راعي مثلا واديك هدينا وقاعد بودي ديني أدوية اسمه هذا بوكيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدق دين ويكهرين بلد النبي أي انضر ذاك مركز الذهب كي قاتن وإلا السعودين وإلا اللقيين مقالة دي مركز ودوا وادين بيد هذين حدان مالين قال ولا نقدعي هبين هنكو بيقنو لكن واقاجونينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب كاسي إلى للسوء من مقالة دي انتو تقو cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeenna buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adiga uu kugu fiican yahay cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiiba u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskaarijiyeen nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegaysta bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jirkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jirkoo dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay jirto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday addoomihiisii addoon ka mid uu u yeedhay maalin wuxuu yidhi lacagtan qaad Abu Dharr al-Ghifaari u gee hadduu lacagtaa Abu Dharr hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey Abu Dharrna markaa magaalada Madiina dibaddeedu deganaa ribda meel la yidhaa oo Uthman bin Affan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa
cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cunay isagu abu dar al-Ghifaari radiyallahu anhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo sidaa ma hinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay oo yimiday uu salaamay wuxuu amiirkii muuminiinta Uthman baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al-khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yiri Abu Dar u gee lacagtaas markaasuu maxaan ka dhigaa wuxuu de ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yiri u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay ciddaasi ka dhabu yiri innaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dar lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxe xoreeyo lacagtan iga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxa doonto akhri markaasuu iga qaado oo ina xariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaa lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yiri wuxuu ku yiri Abu Dar dhageyso hadalku ku yiri eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan ka qaaday aad ku xoroobayso anna adoon baan ku noqonayaa buu yiri marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yiri anu adoon xor aan ahay buu xor bas oo yaabay ninkii lacagta isagoo wada Usmaan u keenay wuxuu yiri waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifaari lacagta daliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushana innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni waqti ku bixiyay bay culimadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tageen bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan Usmaan bin Affan Allah raalli ka noqdee nin baa nabigu yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u tagay buu ka yidhi markaa buu yimid Usmaan bin Affan wuxuu arkay Usmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baqtiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay Usmaan baa ninkii u yeeray war kaale xageed u socotaa wallaahi de waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto de nabiga ay ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa uu nabi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal galin lahaa
hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunya iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacagu u dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhi fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhana way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washiraa cilmi albayci washiraa culummada kaalayo weydii cumar bnu khataab suuqa madiina intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqinaa haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin masjidka nebiga intuu tegey cilma albayci washiraa culummada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo China iyo Thailand baa laga wada duulay habrihii baa socdo kula China u socotaa xageen u soconnaa war muumin waxaa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada iyo inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay han kaga baqno oo diin han ka qaadanno oo diinteenna han baranno oo diinteenna han ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankee lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zamanuu nebi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhaahda maanta sunnaha nebiga ku far adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeya mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesanno insha allah dhahada taama guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonnaa yaa dhegaysto wanaagsan waxa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa la doon inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyaddii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahaddiisu ummadda wax ku taray Usmaan bnu Cafaan cumar buu nebigu u diray maka markii sulx alxudaybiya waa ka cudur daartay cumar wuxuu yidhi aniga may buu yidhi cusmaan baa ku munaasiba buu yidhi cusmaan baa ku munaasiba cusmaan buu nebigu yidhi dal waa runtii cusmaan adigu tag khaalid bin waliid geesinimadii raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilahina dembi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seefta oo ilaahay diintiisa u jihaad waa raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay
zamankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inakuna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegi macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaayo war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelimadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaa buu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay